amisom ee dalka Soomaaliya oo hadalkaasi muxuu ahaa bal marka hore isaga aan daawano. I explained to him earlier, we are aware, those of us who are based in Mogadishu, that Somalia is not Mogadishu and Mogadishu is not Somalia. Hadalkaasi waxa uu ahaa Nicholas Haysom isagoo ragga barbar taagan iyo Baydhabo. Soomaaliya Muqdisho ma aha, Muqdishona Soomaaliya ma aha. Haddaba su'aasha taagani waxa ay tahay qoraalladii uu sameeyey ee uu eersaday ee Soomaaliya ay go'aanka uga gaartay iyo hadalladan oo kale saad u aragtaan fikirkiina uga dhiibtaa. wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay xafiiska wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom kaasoo ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya shalay sheegtay inaan dalka laga rabin kana shaqayn karin. Arrintan ayaa timid kadib markii warqad ka soo baxday xafiiska ANSOM looga dalbay dowladda federaalka inay sharaxdo xarigii Mukhtaar Robow iyo dhimashadii dibadbaxayaashii magaalada Baydhabo. Haysom wuxuu horay uga soo shaqeeyay dalal ay ka mid yihiin Burundi, Suudaan, Ciraaq iyo Afghanistan. wuxuu sidoo kale noqday la taliyaha arrimaha sharciga iyo dastuurka Nelson Mandela xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka Koonfur Afrika. Xafiiska uu iminka Haysom ka shaqeeyo ee ANSOM Muqdisho waxa howl maalmeedkiisa ka mid ah la talinta dowladda, dib u habeynta amniga iyo ku dhaqanka sharciga iyo sidoo kale isu duwidda iyo kormeerista taageerada beesha caalamka sida uu dhigayo qaraar soo baxay 2018 ee qaramada midoobay soo saartay. haddaba waa maxay hadda khadka Nairobi waxa toos inoogu soo biiraya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Caawid oo toos uga jira magaalada Nairobi. mudane wasiir soo dhawow ku soo dhawow BBC Soomaali. haddii aan su'aasha ugu horeysa ku weydiiyo shalay waxaad warqad u dirteen wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya oo aad leedihiin dalka lagama rabo kamana shaqayn kartid. waa maxay sababta? sababta sidaanu marar badan ku celcelinay horta waxay ku caddahay waraaqdii aanu wasaaraddu soo saartay. waxay sidoo kale ku caddahay waraqadaanu u diray xogayaha guud ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa iyo wakiilkiisii dalka laga cayriyay. sababuhu waa badan yihiin ilaa iyo markii uu wakiilku yimid dalka wuxuu ku dhaqmayay wuxuu muujinayay dhaqamo baalmarsan oo dhinac marsan isaga shaqadiisa arrimaha dalka ayuu faragelinayay. wuxuu ku dhaqmayay wax sii fogeyn kara maaragtay maxaa la yiraahdaa khilaafyada jiri kara oo siyaasadeed. wuxuu isa siinayay awood ah inuu dalka madaxdeeda la mid yahay ama isagu dalka u xukumo, taasoo ay tusaale u tahay warqadii ugu dambeysay oo uu u diray wasiirka amniga ee Soomaaliya oo aan ahayn mid waafaqsan isaga shaqadiisa mas'uuliyadiisa meel ka dhacna ku ah UN-ta iyo qarannimada Soomaaliya. waa gartay mudane wasiir haddii aan eegno qaraar tirsigiisu uu ahaa 2102 oo dib dambana looga dhigay 2408 oo soo baxay sanadkii 2018 waxyaabaha loo igmaday xafiiska uu madaxda ka ahaa ninka Haysom waxaa ka mid ahaa dhismaha awoodda dowladda federaalka, ilaalinta xuquuqda aadanaha, ka hortagga rabshadaha iyo waliba xoojinta hay'adaha cadaaladda. su'aalaha uu idin soo weydiiyeen inta badan warqadu idin soo diray intaas ayaa ku qornayd. maadan ogeyn horay qaraarkan wuxuu ku shaqeynayo ninkan wixii loo igmada kaliya buu qabanay wasiir? qaraarku wuxuu farayaa horta xafiiska UN-ta Soomaaliya wuxuu ku yimid rabitaanka dowladda Soomaaliyeed. heshiis ayaa dowladda Soomaaliyeed la gashay uu ku joogo sida dalalka kaleeto oo madaxa bannaan. arrinta hadda aad akhrisay ma diidana iyo isma diidana go'aanka dowladda. wuxuu isagu mas'uuliyadiisu ahayd facilitate garaynta iyo sahlidda arrimaha aad tilmaantay dhismaha dowladnimada Soomaaliya, amnigeeda iyo wixii la mid ah inuu taageero kaalmeeyo oo facilitate gareeyo. laakiin ma ahayn isagu inuu bedelo rabitaanka
dadka Soomaaliyeed oo ay dowladda ku doorteen iyo mas'uuliyadda madaxda dalka. waa gartay warqadda waxa isaga waxa loo egmaday kamid ah ilaalinta xuquuqda aadanaha. warqadan waxa la idinku weydiiyay 15 qof oo ciidanka dowladda rabshado ka dhacay Baydhabo ku dhinteen. dadka Soomaaliyeed ee dhintay oo la idin weydiiyay maxaa gaarsiiyay arintan in aad ninkii idin weydiiyay ka dirtaan dalka? يعني حل idin ka saarneen may horta dadka Soomaalida nagama jecla annaga mas'uuliyiinteeda kamid ah isagu sida uu noo weydiiyay ayaa khaldan. isagu wuxuu sameyn karay waxa jira diplomatic channels oo la yaqaano oo UN-ta iyo madaxa kale ay raacaan. dowladda ayuu la hadli karay wixii u baahan istifsaaraad ama clarification in loo cadeeyo wuu kala sheekaysan karay dowladana diyaar bay u ahayd inay u macnayso arrimahaas jira. laakiin isagu awood uma laha inuu wasiirka arrimaha dibadda uu waraaq u qoro oo yiraahdo by the way waraaq uma uu qori karo maxaa la yiraahdaa wasiirka amniga toos uguma qori karo. wasaaradda arrimaha dibadda ayuu soo marsiinayaa wasaaradda ayaa u gudbinaysa hay'adda dalka oo dan ka leeyahay iyagana siyaabo loola hadla ayaa jirta. laakiin intuu waraaq u soo qoro ma dhihi karo wasiirka su-aashan ka jawaab saan iyo saan ha yeeshay awood waa gartay wasiir laakiin adinku ma qalad ku saxdeen si kale muuga caalweyseen aana ahayn in aad tirahdaan dalka ka baxo? may khalad ma horta in dalka ka baxo la yiraahdo. dowladda Soomaaliya iyada dalka mas'uulka ah marka qofkii aragto dhaqankiisu inuu uusan waafaqsanayn nidaamka uu ku joogo heshiiska uu ku joogo uusan wax u dhimayo midnimada Soomaaliya sumcadda Soomaaliya iyo sharafta Soomaaliya inay tiraahdo iska bax meesha ka timid aad ma aha khalad. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir. wahagaag haddaba haddii aan dib ugu noqono warka la xiriira eriyada wakiilka gaarka ee qaramada midoobay maxay saameyn diblomaasiyadeed iyo mid amni ah ku yeelan kartaa tallaabada ay dowladda Soomaaliya qaaday? waxaa dhanka Nairobi nooga soo biiray wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya General Cabduqaadir Sheekh Cali Diini. General Cabduqaadir ku soo dhawow BBC Somali TV. haddii aad eegto warqadii shalay ay dowladda u dirtay qaramada midoobay oo lagu doonayay in lagu eriyo wakiilka halkaasi u fadhiyo maxaa cawaaqib oo ka dhalan kara aragtidaada? arintaas waxa weeye aad su'aasha ay weydiisay waxaan u maleynayaa hore looga jawaabay hay'adaha ku shaqale muxuu ahaa xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa arintaas jawaabteeda iska leh. laakiin anigu waxaan ka arkayaa dhinaca ay khusayso dhinaca ammaanka oo ah maxay saameyn ku yeelan kartaa ammaanka iyo xillimada dhinacaasaan ka fiirinayaa. waxaan anigu isleeyahay wakiilku waa muxuu ra'yigiisa uu dhiiban karaa laakiin qaabka uu dhiibtay ma fiicna baan isleeyahay. waxaa kaga habboonaan lahayd arinta ayada aan isleeyahay ammaankay wax u dhimaysaa ama nabadgelyada wax u dhimaysaa in uu gubaabiyo ama muxuu ahaa gacan ka siiyo wixii nabadgelyada khuseynaya laakiin aysan noqonin mid ummadda Soomaaliyeed u soo jiidaysa inay ama kala shakiyaan ama muxuu ahaa nabadgelyadooda waxay u dhimto. waxa weeye wuxuu xaq u leeyahay wixii nabadgelyada ku saabsan in uu hay'adaha nabadgelyada ku saabsan uu gacan ka siiyo waxay u baahan yihiin ay gacan ka siiyo dowladda tala ka siiyo. waxaan la soconnaa in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalintaba ay qaramada midoobay taageeridooda iyo lacagsiintooda qayb ka tahay. haddii ay bilaado xurgufta u dhaxaysa dowladda iyo qaramada midoobay soo arrimahaas dhibaato kuma iman karaan? waa mahadsan tahay laakiin waxaan ku leeyahay qaramada midoobay Soomaaliya waxaa ka mid tahay xubin qaramada midoobay ka mid ah weeye. waxa weeye mana ku ahan hal qof oo dowladda Soomaaliya ka cabatay in ay saameyso qaramada midoobay oo dhan iyo waxyaabaha ay u geysato xubin ka mid ah xubnaha ka tirsan qaramada midoobay.
waxa weeye halkan arrintu waxa weeye waa hal shakhsi halkaas shakhsina waxa weeye dowladda Soomaaliyeed qaabka uu dhaqmayo iyo habka uu dhaqmayo iyo nabadgelyadeeda sida wax ugu dhimi karto ayay dhibsatay saasayna mataqaana ay uga samaysay wuxuu ahaa ficil arinta kaga hortagto marka xubnaha kamid ah qaramada midoobay hal qof inay muxuu ahaa tiraahdo hal qof qaramada midoobay waa gartay ficilkaas kamid ahaad aada ku gartay ficiladaas ka dhashay maxaa ka dhalan kara ficiladaas la isku celceliyay iyaga laftigooda oo kamid ah ficiladan la isku celceliyay ee warqadaha la isku dirdiray ee la leeyahay ninkan dalka ka baxo isaguna uu dhowr qodob weydiinayay inay wasiirada ka soo jawaabaan maxaa ka dhalan kara soo cilaaqaadka qaramada midoobay iyo meeshaas kuma xumaan kara dawladda Soomaaliyeed ninkan wuxuu qabanayaa shaqo loo igmada xasuusnow waxa weeye horta cilaaqaadka iyo arrimahaas wixii ku saabsan siyaasad iyo xagga diblomaasiyada waxa uu qaabilsan sidaan hore kugu sheegay xubnaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubnaha kale oo ka sii sareeya laakiin anigu waxaan taabanayaa waxay u dhimi kartaa ammaanka qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo dagaal kula jirta maanta dadka nabadiidka dagaal kula jirta ayay wax u dhimi kartaa taasna qaramada midoobeyna muxuu ahaa uma ahan maslaxa ummadda Soomaaliyeedna maslaxa uma ahan waxa weeye meesha waxa weeye qofka dhibahaya ama dhibku ka yimid waxa laga maarmaana haddii ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed si u arkayaan inaysan ammaankooda wax u dhimin waa gartay dhowr jeer ayaad iigu celcelisay inay dawladdu iyada ka jawaabtay warqadda laakiin adiga aragtidaada haddii aan ku weydiiyo waxa dawladda la weydiiyay waxay inay jawaab ka soo bixiyaan 15 qofood oo Baydhabo lagu dilay miyaan ahayn in laga jawaabo arrinta waxa weeye jawaab muxuu ahaa way mudan yihiin in jawaab laga bixiyo laakiin qaabka jawaabta looga bixinayo qaab ma ahan muxuu ahaayeeto wariyaha waxaas ka soo jawaab waxaasan kugu sameeynayaa inaad tiraahdo ma haboona midda kale waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo qaramada midoobay waxa weeye ciidamada halka shaqada ka qabtay ama booliska ma ahan inaanu difaacayno ama muxuu ahaan leenahay xaq uu leeyahay in wax khalad sameeyo boolisku laakiin sidaad ogsoontahay qalabka Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed oo booliska ah waa laga xayiray qalabka ku saabsan ka hortagga mudaharaadyada rabshada wata qalabka ahaa waa qalabyada laga xanibay oo aysan xaq u lahayn inay soo degsadaan ama ay ku isticmaalaan waxa weeye waxa meesha imaanaysa markaas in askarigii qoriga laga qaato iyo inuu isdifaaco waxba kama dhaxeeyaan marka qof khalad sameeyay marmarsiyo ma yeelan hayo laakiin qaramada midoobay laftigooda iyo arrimahan ku qaabilsan amniga waxay ka mid yihiin oo ka qayb qaateen laftigooda runtii in ay ka xanibaan muxuu ahaa mudaharaadyada rabshada wata sidii looga hortagi lahaa qalabkii looga hortagi lahaa intaba waa mahadsantahay haddana lama joogaan cidaan dul dhigno ama hor dhigno eedahaasa u soo jeedis aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mudane Cabdulqaadir bal markana wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay dalka ka eriday ayaa goor dhaweyd waxa uu ka hadlay golaha amniga laakiin waxa la yaab lahayd in aanu soo hadal qaadin go'aankii dawladda ay dalka uga saartay wuxuu ka hadlay khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo in aan wali la dhameystirin dastuurka iyo waliba qodobo kale mar uu ka hadlayay xaaladda magaalada Baydhabo waxa uu sheegay oo uu yiri eedaha la xiriira falagelinta dawladda ee sababay buu yiri rabshadaha kadib xarigii mid kamid ah musharaxiintii looga hor istaagay doorashadii koonfur galbeed taas oo aan u wanaagsanayn doorashooyinka soo socda ee gobolada kale ama doorashada qaran ee dhacaysa 2020 dhinaca kale safiirka Soomaaliya oo kulankaasna ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu yiri waxaan mar kale ku adkeynayaa golaha amniga dalabkeena ah in qaramada midoobay iyo wakiiladeeda ay mas'uuliyad ka saaran tahay in aysan faragelin arrimaheena gudaha waana in Soomaalida ay maamulaan buu yiri meelaha ay hiigsanayaan mustaqbalka haddaba Nicholas Haysom ayay dawladda Soomaaliya waxay ku eedeysay faragelinta madaxbanaanida Soomaaliya arrintan waxay imanaysaa iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay soo wajahayso khilaaf gudaha oo kala dhaxeeya mucaaradka qaar kamid ah baarlamaanka iyo maamul goboleedyada qaarkood Qaalib Baaruud ayaa warbixintan ka soo diray goor dhaweyd Muqdisho ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom waxa uu shaqada hayay in ka yar 4 bilood laakiin waxa uu ku soo beegmay xilli ay Soomaaliya ka taagan tahay siyaasad adag iyadoo uu khilaaf xooggan u dhaxeeyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya khilaafkii lagu eriyay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxa uu ka dhashay doorashadii koonfur galbeed
kadib markii uu su'aala ka keenay xadhiggii mukhtaar roobow iyo rabshadihii ka dhacay magaalada baydhabo danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxaa loo igmaday arrimo ballaadhan oo ay ku jirto dib u dhiska awoodda dawladda federaalka ee Soomaaliya ilaalinta xuquuqda aadanka iyo xoojinta hay'adaha cadaaladda ee dalka sidaa daraaddeed Soomaali badan ayaa ergeyga u aragtay inuu ahaa garsooraha arrimaha khilaafka ee siyaasadda Soomaaliya hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa u aragtay inuu ku xadgudbay arrimihii loo igmaday markii xilka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2017 dad badan ayaa u arkay inuu dib u soo celinayo qarannimada Soomaaliya taageerayaashiisa ayaa soo dhaweynaya in dalka laga cayriyo danjiraha qaramada midoobay iyagoo u arkay in qarannimada Soomaaliya xadgudub lagu waday in ka badan 20 sannadood laakiin mucaaradka dawladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedada ayaa u arkay go'aanka xukuumadda inuu yahay mid degdeg ah oo reebi doona saameyn xun balmarkana barnaamijka dooda ee caawa haddaynu u galno qodobkeena dooda waxaa martiin noogu ah maxamed cabdulaahi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana ahaa madaxii hore ee laanta af soomaaliga iyo cabdisalaan yuusuf guleed oo arrimaha amniga ka faallooda ahaan jirayna taliyihii ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya barnaamijkuna waxaanu ku eegaynaa khilaafka u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay su-aasha ugu horeysa haddaan ku weydiiyo adiga stuudiyaha igula sugan maxamed waan u tagi doonaaye arrintan khilaafka ah maxay saameyn ku keeni kartaa baad isleedahay markaad eegto dawladda Soomaaliya gudaha iyo banaankiiba waxa uga furan isfaham darro la'aan farxaa mahadsantahay haddaan yara ku soxo taliye ma ahayna taliye ku-xigeenaan ahay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad hadda waxay ku jirtaa amniga iyo siyaasadda aysan wax badan kala fogeyn waxaad moodaysaa Soomaaliya inay gashay weji kale oo hadda arkin qaramada midoobay inay kusoo kordhinayso culays kale oo ku yara ka weyn isfaham darradii maamul goboleedyada iyo Soomaaliya ka dhaxay dawladda dhexe ka dhaxeeyay isfaham darrada hadda u malayso inuu u tilaabsaday qaramada midoobay iyo adduunka Soomaaliya waxaad malaysaa inay ciriiri weyn oo ka weynkii hore ku jirto inuu sii gali doono haddaysan tilaab arrintan looga gudbayo isa qaadinne waxaan u malaynayaa inay fursad weyn sii doonto dhinacyada kale ee ka soo horjeeda waan gartay maxamed cabdulaahi kolay goor dhaweydna waa daawanaysa warbixintii qaramada midoobay hadda golaheeda amniga oo Soomaaliya iyo ninkii la isku haystay ambassadorka uu ahaa qaramada midoobay ba Haysam uu ka hadlayay inuu soo hadal qaadi waayo waxa la isku hayay labadii maalmood ma la yaabtay ha farxaan waa mahadsantahay anagoo halkan London waxa weeyaan baan joognaa laakiin markii aan akhriyay warbixintii oo tana oo aan dhageystay dhowr goor baan akhriyay waxbana kuma jiraan ma eedeynayo run ahaantii wuu ammaanaya dawladda Soomaalida dadaalo ay samaynayso wuxuu ammaanaya madaxweynaha wuxuu ammaanayaa ra'iisul wasaaraha dadaalku samaynayo xagga musuqmaasuqa wuxuu sheegayaa geedi socodka nabadda si dawladda Soomaalida uga qayb galayso guud ahaan wuxuu sidii nin mas'uul ah ayuu u hadlayaa oo uu jamacadda qaramada ka dhaxaysa una baaqna u soo jeediyay oo ku leeyahay Soomaalina taageeray u baahan tahay marka ma soo qaadin maxaa yeelay talaabadan Soomaalidu ay qaaday waa la wada la yaaban yahay ilama haddana anigu ahaan persona non grata wax la yiraaho oo hadee duuga oo la sheegi jiray lixdameeyadii iyo toddobaatanadii iyo dadka u fasirto persona non grata waxay tahay Soomaaliyeed ku sheegto persona non grata macnaheedu waxa weeyaan qof aan looga baahnayn dalka inuu joogo persona non grata waa qof aan waa maxaad uga jeedaa marka wax duuga macnaheedu waxaan uga jeedaa lamaba isticmaalo beriyahan oo berigii hore markii dagaaladii Warsaw iyo NATO ay saysteen bas dadka la eri jiray laakiin beriyahan aad uma maqashid waa Ruushka iyo Mareykanka qaarkood waxa isku sameeyaa nimanka la yiraahdo marka qof jamacadda quruumaha ka dhaxaysa ka socda oo la eriyo way ka duwan tahay safiir wadan ka socda waa arrin aad iyo aad u culus macnaha waxa weeyaan adduunka oo dhan baa tiriyaha naga tagaan waan gartay axmed waan kugu soo laabanaya go'aankaasi u leeyahay dawladda Soomaalida kolay maalmahan oo dhan aan ka hadlaynay laakiin waxa la isweydiin karo waxa weeye maxay u keeni kartaa dawladda Soomaaliya farxaan wadaad fiiriso maamuladii Soomaalida baarlamaanka hadday noqoto
maamul goboleedyada hadday noqoto mucaaradka hadday noqoto Soomaalida inta mas'uuliyadda markii laga saaro dawladda Soomaaliya reaction waxay ka muujiyaan ama jawaab waxay ka soo celiyeen wax lagu fududaaday waxaan suurtagal ahayn arrin ay ahayn absolutely inaan la sameeynin ay uga jawaabayaan waxaad maraysaa marka dawladda Soomaaliya inay ka sii go'ayso bulshada inteedii kale inay ka sii go'ayso siyaasadii iyo wada socodkii wixii habsamidii Soomaaliya 10 iyo dhowr kiisan laga soo shaqeeyay laakiin shalay oo aan la hadalnay wasiirka arrimaha dibadda oo aan wareysanay barnaamijkan ku wareysanay Soomaaliya Axmed Ciise Cawad wuxuu yiri annagu lama dagaalsanin qaramada midoobay qof shakhsi baan ka hadlaynaa oo ka gudbay wixii loo igmaday go'dan ma ku tilmaami karnaa marka haysan ma aha shakhsi waa qaramada midoobay haddaad qaramada midoobay rabtaan aragto haysan baad arkaysaa haddii ay haysan ay jirto wax lagu eedeynayo oo qoraalkana kamid ah dawladda Soomaaliya ku eedeynayso waxay ahayd inay si hoose ula xiriirto ay tiraahdo waxa ma tabanayna waxa laga yaabaa marka in si fudud loo xallilahay waxyaabaha laakiin tilaabtikood waliba marka ay soo baxdo haddaad fiiriso waxay ahayd saacado ka bacdi 2 saac ka bacdi markii la duqeeyay xaruntii oo ka deganay magaalada Muqdisho oo dad dhaawac dhulka yaaleen ayay soo baxday warqadaani marka waxa la isweydiinay dawladda Soomaaliya carbaarinteedu waxay soo baxday maalin ka bacdi almost marka waxa la leeyahay war Soomaaliya xagee u socotaa fahamka ay qabaan nimankan xukuumadda haya maxay tahay amnigii bay gacanta ka sii baxaya maamuladii xiriirkii iyo dadkii kale ila leeyahay gacanta ka sii baxay hadii marka internationalka ku istaagto markaan oo internationalka haysna ma fikradaas waan gartay maxamed ma la qabtaa fikradda Cabdisalaan uu leeyahay oo sawir mugdi oo ka bixinayo leeyahay amaankii baa faraha ka sii baxaya absolutely waan la qabaa ninkan uu leeyahay waa shakhsi aan ka jawaabo halka shakhsi maaha sidoo Cabdisalaan uu sheegay waxa weeyaan wuxuu wakiil ka yahay xogayaha guud ee Jamacadda Quruumaha ka dhaysa sidoo asagu uu yahay wasiirka khaarijka ee Soomaaliya ee hadduu Ingiriiska London uu yimaado lama qaban karayo maxaa yeelay inkastuu hatta tuu dambi galo shakhsi qofkii yiri Cabdisalaan ma ahayn waxaan soo xiganayna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo waraysanay baa ku tilmaamay inuu yahay qof shakhsi aniga markaasaan sheegay waan dhageystay waraysigiisa oo yiri anagu lama dagaalansanin Jamacadda Quruumaha ka dhaysa shakhsi aan la dagaalamsanay arrin yar baan ku sheegayaa Farxaano hadda maxaa dhici karaya wax in laga fiirsanin baan ku sheegi waa ogtahay way isku xidhan yihiin safaaradaha iyo Jamacadda Quruumaha ka dhaysa urur u dhaxeeyay leeyihiin adiga iga yaqaanee hadday soo saaraan sida statementkii ma dawladaha oo dhan bay wada eriyayaan waa arrin aan laga fiirsanin waxaa la arkaa inay isla markaas ay yiraahaan ay soo saaraan statement ay leeyihiin waan ku raacsanahay wuxuu Mr. Haysom yiri marka maxay ku sameynayaan taas waa qodobka kale aad waxay yiraahaan waan ka eriyaynaa meesha arrintu waa arrin sharci ah ma maamulaan asaga gabigiisaba ee boardku ku nool yahay waqtigu doonayo iimaan karaya waqtigu doonayo ka bixi karaya laakiin taa marka laga soo tago inay maamulaan iyo in kale dawladdu waxay ku doodaysaa oo leedahay ninkan dhowrkii bilood oo hadda uu xafiiska u hayay wuxuu bixinayay hadallo awsan ka fiirsan warbixinada uu soo gudbinayo waxay ahaayeen warbixino inta badan hareer marsan protocolkii lagu yaqaanay qaramada midoobay marka miyaan xaq u lahayn hadduu qaldan yahayna iska qabtaan waxaan u malaynayaa raalli ha iska ahaadaan nimankaas saas leh Haysom waa nin qareen ah waa nin diblomaasiya waa nin aqoon fara badan leh midda kale waxaa ka dambeeya Jamacadda Quruumaha ka dhexaysa oo dhan baa la wada shaqaynaysa ayagu uma yeedhin karayaan Jamacadda Quruumaha ka dhexaysa qof يساس oo kale jooga anigu halka kuma arki wax u yeedhin karaya wax u yeedhin karaya ma waan gartay maxamed haye lama yeedhin kara leedahay Cabdisalaan lama yeedhin karayo Cabdisalaan qaramada midoobay yadii qaramada midoobay anigu hadda waxaan maxamed waxaan ku sii taageersanahay ku daraya qaramada midoobay markii Soomaaliya la joogo adduunka oo dhan bay metelaysaa compound kale isla degan yahay qaramada midoobay qaramada midoobay wax dhan isku yihiin hadalkan iyo qoraalkan kaliya kuma ahayn Ingiriiska kula jiray Faransiiska Jarmalka kula jiray Europeanka kula jiray marka warqadan dawladda Soomaaliya ka soo baxaysay u maleysay in ninkan iska baxayo waxaan isleeyahay fudayda ku jira laakiin waxyaabo kale aan ka cabsanay waxay tahay ka soo qababa inuu haysan tagay waan gartay qofka lagu soo bedelay wuxuu hogaamin doonaa siyaasadii iyo wixii laga hadlayay waxa haysan warqadan ku soo qoray maalintii ka bacdi maalintii la ceyrinay maalintii ka horeysa warqada eed waxay dadkii la dilay maxaa loo dilay ninka la xiray candidate-ka ahaa Abu Musuur Roobow maxaa lagu xiray 48 saacadood qaba sharcigiinu inuu qofka maxkamad la geeyo wuxuu intaas oo 20 maalin ku dhawaad xiran yahay maxaad xadgudubkan u samayseen su'aalahaas weydiinay su'aalahaas oo xuquuqda bini'aadamka la xiriira hadda marka goor dhaweyd marka qaramada midoobay arintii looga hadlayay Soomaaliya golaha amniga laguma soo hadal qaadin arintan cusub ee hadda taagan marka dawladda Soomaaliya position-ka taaganta waan ognahay waxay yiraahdeen decision-keenu go'aankeenu waa mid kama dambaysa marka safiirkii Soomaaliya wuxuu leeyahay faragelinta nagala daayo marka New York buu joogayaa mise dib waxa mar ugu laabanaya leedahay shaqadiisa buu sii wadanaya
waxaan isleeyahay markaad fiiriso safiirka Soomaaliya laftiisu ninkan waan ceyrinimo ismaashka ma usadhin hadalkiisa waxaa kamid ah madax banaanideena naloo dhaafo arrimeena naloo daayo laguma haystaan umaleyn dawladda Soomaaliya madax banaanideeda iyo xor u tahay waxay qabanayso laakiin waxaan isleeyahay waxyaabaha muhiimka ah hadda in asaguna una soo qaadin haysan madaxda Soomaaliya soo qaadin طبعا waxa laga dawladda Soomaaliya tan la quursanaya maxaa arintu uga jawaabi laaya laakiin waxaan maleynayaa in ay jiraan isla su'aasha aan weydiiyo maxamed ma kula tahay in haysan waxaan oo dhan iska dhiga tiraya hawshiisa Muqdisho iska sii wadanayo anigu saasay la tahay asaga maaha iska mid tigirayay jamaacada kurumaha ka dhaxaysa Mareykanka Europeanka kulligood ayaa waxay ku horeen meesha shaqadaadii iska wado laakiin Soomaalida waa la hadlaya laakiin ogow dawladda Soomaaliya UN-ka qaramada midoobay qayb ka tahay qayb bay ka tahay laakiin codkeedu waa mid markii loo eego 150 dal weeyaan meeshan ku dhawaad baa meesha jooga marka Mareykanku hadda wuxuu oran doonaa moogin beesha Yurub waxay oran doontaan ilama hadda moogin laakiin waxaan filanayaa statement la soo saari doono ceebta ugu weyn meesha ka dhici doonta waxa weeyaan anigu sidaan u arko haysam hawsha uu sii wadan karaya waan gartay mid kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye ku saxsan yihiin ayaga naftirkooda waa inaan eegno doorka iyo warqadan waxay yiraahdeen lacagtii inay ka jiraan ciidankii Soomaaliya halkii qofkii mas'uulka ha la aadi lahaa in la yiraahdo ciidamadii shabaab la dagaalamaya baan lacagta ka jarnayna lagu goodiyo way ku goodinayaan maxaa yeelay haday xadgudub sameeyaan oo ciidamada shaqadii loo diray ayna qaban waayaan hadee marka wixii hawl baa loo diray marka xadgudub markay sameeyaan hadda eeg arrin dimuqraasiya meesha taala roobo xaq buu leeyahay inuu istaago arrinta kale ay ku sheegeen uu ku sheegay waraaqdiisa waxa weeyaan oo jamco ka hadlay meesha oo muhiim ah oo wiilal xusin waxa weeyaan ninkan roobo wuxuu ka soo baxay al-shabaab macnaha waxa weeyaan dadkii al-shabaab ka soo bixi rabay ee doonayay geedisocodka nabadda inay ka soo qayb galaan ayuu ahaa waxa hore haysamaya ayaa mataqaanaa ay hakad arrinta ku noqonaysa maxamed waqtiga naga dhamaanayo waxaan siinayaa su'aasha ugu dambaysaysna maxaa la filan karaa baad is leedahay ugu dambeyntii farxan Soomaaliya waxa ka cusboonaaday wajh cusub baa yimid dagaalaha ka socda waarta Somaliland iyo dagaalaha ka socda gobolka Hiiraan galmudug xuduudda Soomaaliya